xiisadda ka dhalatay qorshaha Itoobiya ay ku doonayso buuxinta biyo-xireenka ay ka dhisatay biyaha webiga Niilka way soo durkaysaa xaaladdu. reer galbeedku waxay u muuqdaan kuwa xaaladda uga sii daraya oo kala taageeri karaba ugu yaraan dhinacyada xagga dadaalada diblomaasiyadeed. reer galbeedku waxa ay doonayaan wada hadal iyagu ay qayb ka yihiin oo ay garwadeen ka yihiin, laakiin Itoobiya way diidan tahay arrintaasi. garab ayay uga helaysaa qaar ka mid ah quwadaha caalamka ee ku jira 5 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Ethiopia waxay doonaysaa inay bishan ugu soo wajahan qabato in ka badan 13 bilyan oo mitir kiyuub oo biyo ah, taas oo ay ku sheegtay inay xaq u leedahay qabashadeeda. ra'iisul wasaare Abiy Ahmed wuxuu cadeeyay inaysan cidna uga baahnayn fasax biyaha webiga Niilku. waxa uu ku sifeeyay dhinacyada doonaya inay ka hadlaan kuwa aan ku soconin maskax fiyow ama maan toos ah. waxa ugu baaqay inay toosaan oo ay soo jeensadaan. madaxda Masar iyo Suudaan labaduba way sii kordhinayaan hanjabaadaha ay u jeedinayaan Addis Ababa. saacad ka hor labada dhinacba waxa ay sheegeen inaysan gorgortan ka geli doonin biyaha webiga Niilka. waxa ay tilmaameen in tallaabooyinka Itoobiya ay yihiin kuwa halis badan. khad cas ayay ku sifeeyeen in biyaha webiga Niilku dhankooda ay uga dhigan tahay. waxa ayna muujiyeen walwalka weyn ee ay qabaan haddii biyahaasi la qabto. ciidamada labada dal ee Suudaan iyo Masar oo wadajira waxa ay kulaalayaan xuduudda Itoobiya ay la wadaagto Suudaanta waqooyi. waxay u muuqdaan inay isku diyaarinayaan howlgal military, taasoo ka dhan dhanka Addis Ababana looga arko wax aan dhici karin ama aan lagu degdegi karin. Cabdiraxmaan Hussein oo ah falanqeeye arrimaha gobolka Geeska Afrika ah waxa uu ayidsan yahay in dhacdooyinka ciidamo dumidda ah ee Masaarida iyo Suudaan ay tahay in culays uun la saaro Addis Ababa, caalamkana loo muujiyo in ay labada wadan wadaan guluf dagaal si xaaladda loogu eego indho degdeg ah, balse aysan jiri karin duulaan hubaysan oo ay labada dowladood isku dayi karaanba. Maraykanka oo ah cidda ugu badan ee hadda arrinta ku dhex jirta una magacaabay ergey gaar ah, waxa ay doonayaan in xiisadda ay ka dhigtaan kaar ay ku cadaadiyaan Itoobiyaanka oo ay ka waayeen danahooda siyaasadeed, laakiin taasi hadda ma muuqato. ergeyga gaarka ah ee loo xilsaaray arrintan oo dhowaan tagay Masar, Eritrea, Suudaan iyo Itoobiya waxa uu sheegay aqalka sanadka markii uu soo laabtay in xaaladdu hadda ay tahay mid adag. wuxuu muujiyay walaaca ah inaysan Addis Ababa diyaar u ahayn inay dib u dhigto qorshaha qabashada biyaha ee bishan ugu soo wajahan. Feltman ayaa warbixintiisa sadarrada ugu dambeeya ku xusay inuu la kulmay dhammaan dhinacyada ay qusayso, ayna u muuqdeen ifafaale halis leh oo muujin kara ficilo uu ku sameeyey ama uu ku sifeeyey kuwa saameyntooda gobolka oo dhan ay gaari doonto. ka sokow hadallada Maraykanka, dhinaca kale waxaa la xaqiijinayaa in 70% shirkadaha shisheeye ee ka shaqaynaya dhismaha biyo-xireenkan iyo kuwa hawsha qabashadaba wada ay ka soo jeedaan reer galbeedka, gaar ahaana Maraykanka, Jarmalka iyo Faransiiska. dhammaantoodna ay shaqadooda wataan. taasi waxay rumaynaysaa aragtida falanqeeya Cabdiraxmaan ee ku wajahan inaysan Khartoum iyo Qaahira midna ku dhicin qaadida tallaabo military ama ugu yaraan wax u dhow. Ethiopia 30 cisho ee la soo dhaafay waxa ay agagaarka biyo-xireenka geysay hubka culus ee Ethiopia ay haysato. ujeedada ugu weyn waxaa lagu fasiray inay ka hortagayso isku day kasta oo lagu doonayo in waxyeello loogu geysto biyo-xireenka. waxa ka sii horreeyay duulimaadyada diyaaradaha ee hawada biyo-xireenka maraya oo la joojiyay gabi ahaanba, lagana dhigay ka caagan duulimaadka diyaaradeed. dhammaan tallaabooyinkaas iyo xaaladda hanjabaadda lehba gobolka waxa ay uga dhigan tahay inay tahay xalad culus oo siyaasadeed, taasoo aan la aqoonin dhammaadkeeda halka uu ku jihaysan doono. ma jeceshahay inaad barato qur-aanka kariimka ah iyo culumta shareecada? ugu kaalay markaska Nuurayn Online oo baro adigoo gurigaaga jooga qur-aanka, higaada iyo culumta kale islaamka. wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda.